Gabadhan waxa ay ahayd gabar aad u qurux badan, sidoo kale waxaa dhalay nin boqor ah. Socodkeedu aad ayuu u gaabnaa oo guriga kama soo bixin jirin, waxayna aad u jecleyd barashada Qur'aanka Kariimka oo ay baratay. Sidoo kale mar walba waxay aad u xiisayn jirtay inay ka ag dhawaato meelaha khayrka lagu sheegayo ama uu ka dhow yahay. Warbixinta ama qisada maanta idiin soo gudbinaya ayaa taaban doonto meelo fara badan, waxaana rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontiin. Waxaadna ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leenahay Socdaal 24 iyo aaladdeena TikTok-ga. Waxa aynu ku bilaabanaysaa sida tani. Gabadhan oo dhalay ninka boqorka ayaa waxay ahayd gabar aan socod badnayn oo inta badan guriga iska joogto. Maalmaha ka mid ah ayaa waxay go'aansatay dahab ay haysatay inay suuqa geyso, kadibna ay soo iibiso ayada oo aan qofna u sheegin. Waa ay baxday, dahabkii ayay soo iibisay, lacag fara badan ayayna ka soo bixisay. Waan ogahay inaad isweydiinayso lacagta dahabka ay ka soo bixisay sida ay yeelayso ama waxa ay ku qaban doonto. Ayadu hami adduunyo ma aysan ku jirin, laakiin waxa ay rajeynaysay in aakhiradeeda ay horumarsato. Gabadhii waxa ay lacagtii ku darsatay ama waxa ay dhistay masjid. Markaas masjidkaas oo ay doonaysay inay ku hormariso lacagtii dahabka ay ka soo bixisay. Gabadhu waxay ahayd gabar mar walba khayrka jecel. Masjidkii maalinkii markii la dhameeyay dhismihiisa ayaa gabadhii waxa ay jecleysatay in maalin maalmaha ka mid ah ay soo booqato masjidkii, markaas oo masjidkii dhismihiisa uu dhammaaday. Gabadhii ayaa masjidkii inta aysan imaan waxa qayb ka mid ah masjidkii guddigii jooga ayaa waxay go'aansadeen in guud ahaan shaqaalihii dhisayay masjidka bannaanka loo soo saaro si gabadha markaas u aragto. Gabadhii waa ay imaaday masjidkii, kadibna waxa ay fiirisay quruxda masjidkii ayadoo indhaha ku raaxaysanayso gurigii maanta ee ka dhistay adduunka, aakhiradeedana uu horumarsatay. Gabadhii masjidkii markii ay gashay waxa ay iska furtay indha shareerka, ama sidoo kale markii indha shareerka ay iska furtay ayay qaybihii masjidka oo idil ayayna ku soo wareegtay. Mid ka mid ah shaqaalihii masjidka wax ka dhisaya ayaa waxa uu ku haray qaybta kale. Gabadhii marka qura ah ayuu wuxuu ku dhuftay indhihiisii, isla markiiba waxa uu qaaday jacayl daran, wuuna u sheegi waayay gabadhii. Isla durbadiiba gabadhii markii masjidka ay aragtay aad ayay ugu qanacday, wayna ka soo tagtay. Wiilka isla markiiba gabadhii indhaha la jaan qaaday ayaa waxaa lagu magacaabay Cali waxa uu ka soo jeedo qoys tabartooda aad ay iskaga liidato. Hooyadiis waxay ahayd islaam waayeel ah, asaga ayaa u shaqay jiray, mana soo bixi jirin oo hooyadiis guriga ayay joogtay cidoo idil, asaga ayaa u dhaqdhaqaaqi jiray. Cali maalinkii uu arkay gabadhaas dhoorsan ee xijaaban ee masjidka dhistay ilaa guriga uu ka tegno wuxuu noqday maqano jooge. Sariirta ayuu saaxiib la noqday oo waa uu soo istaagi waayay firaashka. Halkaas ayaana cuntada loogu geeyaa. Hooyadiis ayaa maalin maalmaha ka mid ah wareysatay wiilkeeda waxa ku dhacay. Kadib waxa uu sheegay xaaladda qabsatay. Markaas ayuu ku dhahay, hooyo, anigoo jooga masjidka ayaa maalin qura waxaan indhaha ku dhuftay gabadhii boqorka uu dhalay. Jacayl xad dhaaf ah ayaana u qaaday. Hooyadii ayaana dhahday aniga ayaa u tagayo oo u soo sheegayo. Inkastoo aanan rajeynayn ayay dhahday in aan ku guuleysan doono. Hooyadii oo niyadjabsan ayaa gabadhii boqorka u tagtay, kadibna waxa ay weydiisay ama waxa ay u sheegtay sidoo kale sida ay wax u jiraan. Hooyadii wiilkeyga ayaa ku jeclaada ayay dhahday maalinkii masjidka aad soo indheynaysay. Gabadhii markaas hooyadii ayaana u sii raacisay, waan ogahay inaad isku tabar ahayn oo aadan aqbali doonin, laakiin xaaladaas ayaana haysato. Gabadhii inkastoo hooyo waxay dhahday waan kaa aqbalay mana kaa diidin oo wax walba waxaa tahay hooyaday, waana ku qanacsanahay ayay dhahday. Wax walbana hadalkaada ayaa iiga qiimo badan. Hooyadii aad ayay u faraxday. Markii ay faraxday kadib gabadhii ayaa shuruud hor dhigtay. Markaas ayayna waxay dhahday
wiilkaada haddii shuruuddan uu ka soo baxo diyaar ayaan u ahay guurkeennana wuu dhacayaa. Gabadhii hooyadii ayaa weydiisay shuruudda, markaas ayay dhahday waan oofinaynaa ee noo sheeg. Gabadhii ayaa markaas waxay dhahday hooyo wax sidaas u adag maahan, waxaan wiilka ka rabaa 40 habeen oo isku xigto in salaatuleyl uu soo kaco ayay dhahday. Hooyadii oo aad u faraxsan ayaa waxay ku soo noqotay gurigii, kadibna wiilkii ay u sheegtay xujada lagu soo xiray iyo in laga aqbalay jacaylkii. Wiilkii oo aad u faraxsan gabadhina aad u jecel ayaa habeenkii koowaad wuxuu bilaabay salaatuleylkii. wuu istaagi waayay in muddo markii uu dukanayay fadhi ayuu ku dukaday qaybta kale. Habeenkii labaad sidoo kale ayuu u dukaday. habeenkii saddexaadna qalbigiisa waxaa soo gashay in rabbigiisa uu sii jeclaado, sidoo kale khayrkan uu sii jeclaado. habeenba habeenku ku sii xigo waxaa aad u sii qurux badnaanaysay in salaatuleylka ay u sii qurux badnaanaysay maadaama habeenadii koowaad oo fadhi ku dukanayay. dulucda sheekada iyo qisadan ay xambaarsantahay ayaa waxay tahay gabadhaas doorsan ayaa sidoo kale waxa ay sabab u noqotay wiilkaas qalbigiisa in xagga Allah uu u jeediyo. labadoodina waxay noqdeen laba qof oo wada guuleystay. adigu mar walba qofka dadnimadiisa ha fiirin, laakiin fiiri rabbigiisa sidoo ku yahay. waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. waxaad ka daawanaysiin aaladda YouTube-ka aan ku leenahay Socdaal 24 iyo aaladdeena TikTok-ga. tani intaan ku kulmi doono muuqaal noocan oo kale waxaan inga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. mar walba ku xirnaada hooyga qisooyinka Socdaal 24. saaxiibada share u dheh si aan u helno saaxiib adigoo kale. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka.